بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن وذا السلام الأمانتين. هدان إذن كور حالة جود كوفيد ودنك وحكو سو كردي صدن يشن حالات وحالب لباتن يشن وحاددك طبعا حالتها ميلها إكل جوجان هدان دول مرنا قبل كبنادر وحاد جوج أفري لباتن روح بونتلان وحاد جوج تسديت روح سومالي لان سدح روح dadka laga helay xaaladahaas cusub da'dooda waxay u dhaxaysaa ka yar 20 sano waxa way boqolkiiba 90 sabaq saraali hada boqolkiiba 9 20 ilaa 39 inta u dhaxaysa da'da waxa way 35 boqolkiiba markii la xisaabiyo 40 ilaa 59 waxa way boqolkiiba 39 60 sano iyo ka badanna boqolkiiba waxay ka joogaan 17 tirada guud ee xaaladaha marka la isku aruuriyo Soomaaliya oo dhan waxay gaaraysaa 1089 ruux dhimashada waxa ku soo korortay hal qof halkaas qof wuxuu ku geeriyooday Puntland Ilaahay u naxariisto tirada guud ee dhimashada waxay isku gaaraysaa 52 ruux cudurka waxa ka baskooday 3 qofood tirada guud ee dadka laga waayay xanuunsanaa ee laga waayay فيروس كقبول لجوا وحيسو جارسة بقول يلباتن يكو وكعلينا مرة والبكمة دالين إن شاء الله أن أوضع جهينو إنرجيين يو وحول بو معقول سيد عذر كان لو جهرتجي لها عذر كان لو جهرتجي كرواية إن لحكم وحلو بها بلشة لنا عيني بسوي جيسته إن لدقيست وعي قلنت إذا كخبراء ذا التقاطيرته وأنا ذا بحنايان إن laga joogo meelaha buuqa badan in bixida la yareeyo in afka la xirto gacmaha mar walba la dhaqo meelaha ciriiriga la iska xakameeyo qofka haduu isku arko calaamadihii cudurka COVID-19 inuu wacan karo nambaradii loogu talagalay loo sheegay inay wacdaan oo freega ah si ay u helaan macluumaad zaa'id ah waxa jooga dad takhaatiir haya xogtiyo dhan kala talinaya wax allaala waxay sameyn lahaayeen waqtigaas ay soo wacayeen wixii ka dambeeyay waa wax laga hortagi karo cudurka waa inaan ka dhowrna khaasatan waajib gaar ah naga saaran yahay dadka waayeelada ah dadka xanuunada chronic ah qabo waa ina u turtaa qofka yaani ad jeceshahay oo qaraabada ama saaxiibka ama familkaada qof walba waajiba saaran in uu xakameeyo cudurka insha Allah ta'ala waxaan ku kala tagaynaa inaan dadaalno haddii aan dhannahay anagoo dhan sida cudurka looga hortagi lahaa oo aan raacna talooyinka nala siinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.